بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، caawa ay tahay 26 bishii afraad 2020 waxay isoo gudbiyeen xildhibaan gaaraya 54 xildhibaan mooshinka dhan ah madaxweynaha dowlad goboleedka Hirshabeelle Maxamed Cabdi Waare kaasoo lagu soo eedeeyay musuqmaasuq ku xadgudubka dastuurka iyo maxay ahayd ku takfirada awoodda ayaa qodobada waaweyn lagu soo eedeeyay kamid ah mooshinkaas waan guddoomiyay waan qabtay إن شاء الله تعالى وحنا سوير دونا سدا وحرك وقواح اللبانة يسوق الدين أو يعني وتمام الموشين كان أوديه هاي وحنا سوير دونا اللبانة سي أي واجب كود دستوري وقتان وحنا مركا أنا أشياء ببلاش عالم كا ومدر هالشباب دولة الصوماليات إن هالشباب بربر قرق وصارت هاي مسؤولية ده وإسكالية هاي مدحوين محمد عبد واري مدحوين كحجانكا marka Hirshabeelle waxaan leeyahay laga soo gaara musuqmaasuq ayaa hareeyay hantideeda ayaa la lunsaday maxay ahayd amnigeeda ayaa faraha ka baxay siyaasadeeda ayaa faraha ka baxday dowladda Soomaaliyeed waxaan u baaqayaa in dhammaan inta kala xabanaysa Hirshabeelle inay si degdeg ugu soo gaaraan annaga amaana ayaa naloo dhiibtay amaanadeena muxuu ahaa hogaankii Hirshabeelle uu ku fashilmay mooshikiisa ayaa horyeelay waa mooshikiisa saddexaad oo laga keena marka waxaan rabaa in ciddii Hirshabeelle u naxayso oo dowladda Soomaaliya ugu horeyso in arintaasi ay wax ka qabtaan mooshinkiisa insha Allah taala saacadaha fawd inuu soo hayo si dastuurka u qaba ayaa la marinayaa mar kale waxaan u baaqayaa ummadda reer Hirshabeelle dowladda ugu horeeyaan inay aayahooda ka tashtaan maadaama Hirshabeelle ay noqotay maqaayad yani restaurant qof le amal aan muxuu ahay loo shaqeynayo marka موشيكنا ويوريا إن شاء الله سيد دستوري لجون ده لكن جودها محل هيرشبيل وافشل انتي وحنا في شيرين محمد عبد واري مدحوين كحيان كيسا إيجانا كمسؤول لا تكرفلكي وحما يا كدعي مدحوينها جمهورية رئيس الوزراء لما حماها كسوج هيرشبيل الدول وجر وحن شاقيا إن هيرشبيل إنه قليا أي محوها يقفوا صارنتي ومحسنتين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.